haddaanu nahay beelaha wadadega gobollada awdal iyo salel annaga oo danaynayna midnimada ummadda dareenka kala turjumayna dareenka qaybaha bulshada aanu hormoodka u nahay waxaanu maanta oo taariikhdu tahay bisha 9aad 6deedii 2009kii si wada jira u soo saarnay koow in madaxweynaha maanta talada dalka haya looga fadhiyo in uu diyaariyo sida ugu dhaqsaha badan leh madan loo dhan yahay oo lagaga wada tashanayo saami qaybsiga wada lahaanshaha dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland maaha isagu ha loo qorqoro maaha madaxweynuhu wasiirada ha loo kordhiyo maaha baarlamaanka saddex lagu dara maaha waa in dib la iskugu soo noqdaa oo madaxweynuhu diyaariyaa madashii ummadda reer Soomaaliland ku wada hadli lahayd si looga baxo xaaladahan maanta lagu jiro oo ummaddu dib u tashato waxaanu xasuusinaynaa salaadiinta odayaasha iyo waxgaradka beesha dhexe inay ku gacan siiyaan madaxweynaha kuna guubaabiyaan in uu madashaa diyaariyo ee aanay ku guubaabin inuu samaroon laba wasiir siiyo haddaba ilaa la sugo wada lahaanshaha dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka saddexaad ilaa la sugo haddaba wada lahaanshaha dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland lagama hadli karo lama soo qaadi karo lamana qaban karo wax doorasho ah gobollada awdal iyo salel qodobka afraad waxaanu madaxweynaha si sharaf iyo milga ku jirto isagoo oo u fikiraya si qarannimo ah uga codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan u qabto madasha lagaga arsanayo dib u sixidda wada lahaanshaha dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo wada dhan yahay qodobka shanaad waxaanu wadamada daneeya Soomaaliland deeq bixiyayaasha iyo hay'adaha caalamka si buuxda uga codsanaynaa in ay murtiyeedka si dhow ula socdaan oo fiiro gaar u lahaadaan aad iyo aad baad mahadsantiin